موضوع عاو أبو موضوع مهم وياهي موضوع وحوي ينكسو هذه وقتي كهبونا حسين iyo panelka iyo contributorska iyo waa inoo faahfaahin doona adinkuna waxaad ku darsan doontaan ka qaybgalayaal ahaan ma jiraan wax su'aalo ah oo aanu cid aan u sii diyaarino oo aanu su'aalahooda kaliya aanu qaadano waxaan u samaynaa random baan u samaynaa raalli hana laga aado haddii aanan u helin waxaan jecelahay haddii waqtigu inagu saamaxo in aan dhammaan dadka ama su'aalaha keensaday ama raba inay wax ku biiriyaan in aanu aqbalo taasi wax badan ayay waxay ka taraysaa qoraalada iyo waraaqaha iyo maxaan ku radaa dokumentiga ka soo baxaya haddii aan la idmo aad iyo aad baan waxaan u bogaadinayaa dadaalkan ballaaran ee hay'adda BRC ay wado oo muddooyinkan dambe ka sokow dadaaladii badnaa ee waday oo awalba horay ugu shaqaynaysa ummadda haddana barnaamijkan BRC Talks ama wada hadallada BRC ee ay dadka aqoon-yahanka iyo waxgaradka isugu keenayso oo mawaadiicda dalka iyo horumarkiisa looga hadlayo ay ku abaabulayso aad baan u soo dhaweynaynaa waana uga mahadcelinaynaa wax badan bayna waxay ka taraysaa dadka Soomaaliyeed inay kala faa'iideystaan oo ka faa'iideystaan kuwa xoogaalka oo looga faa'iideysta arrimaha markaa taagan mawduuca hadda caaway uu ku saabsan yahay BRC Talks oo mudane xalane oo halkan caaway kaga hadli doono martideena uu ku yahay waa mawduuc aad muhiim u ah muhiim Soomaaliya oo dhan oo ah muhiim inay dad badan oo aan la socon meesha hadda wax marayaan iyo waxyaalaha la isku hayo inay wax ka ogaadaan su'aalaheena caawa waxaa jiri doonta fursad aan siin doono dad contributors oo fadhiya lineka u soo horeeya oo ay ka mid yihiin dabcan Yacquub Maxamed Cabdiwahaab Zainab Timbiye Ismaaciil Xaaji Warsame iyo Ismaaciil Saciid Awnur iyo Cabdisalaam Bilksay waa dad khubaro ah oo aan u soo xulno dabcan aanu garanay inay yihiin mawduucda laga doodayo dad wax ka oran kara aanu fursad gaar ah siino ka bacdina waxaanu fursad siin doonaa cid walba oo runtii aanu ka gaari doono insha Allah halkan caawa cidii dabcan aan fursad helin habeena kala siin doonaa waxaan kaloo aanu rabnaa inaanu hubino dooda cidda ka maqan laftirkeena fikir ahaan inaan matali karno waan isku daynaa cid walba oo aanu gaari karno inaanu runtii oo aragti ahaan meeshan ka maqan inaanu ku darno waxaan guda gelayaa marka doodeena caawa waxaan doonayaa su'aasha koobaad inaan weydiiyo wasiir xalane oo garabkayga bidix fadhiya xilligiina dawladda Xasan Sheekh waxa la soo dhisay 4 maamul goboleed mar walba waxay la kulmiyeen maamul goboleedyada tan caqabado dib u dhis maamul iyo murano siyaasadeed bay mar walba la kulmayeen dabcan dawladdan hadda jirta ee uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo waxa laga filayay inay sii baritaarto ama ay xoojiso hanaankan federaalka ah haddana waxaan arkaynaa inay caqabado badan oo dib u dhis maamul inay wajahayaan maxaa sababaya mar walba in dawladda ama xukuumadda timaaday dib in loo soo bilaabo maamuladii hore u jiray in dib loo dhiso issuegu marka hore wuxuu ahaa markaan runtii isku sheegno dad baa diidana federaalka lahaa ma idin khayroon tahay haddii lagu noqdo habkii unitariga ahaa markii dambe laakiin federaalka waa la wada aqbalay wuu samaysmay hadda tan socota ma aha tii ahayd yagleelka iyo isku keenidii oo mar walba dhib lahayd waa kala daadin hadda tan waa cusub tahay Shamsa waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo dabcan sharci yaqaan baa tahay hay'ado kala duwan waad la soo shaqaysay sida hadda wasiirku sheegay caqabad badan baa ka taagan nidaamkan federaalka xagga fahamka iyo hirgelinta labadaba nidaamkan federaalka adduunyada waxaa ka jira habab kala duwan oo dawli ah unitary iyo confederation iyo federal federaalku muxuu kaga duwan yahay kuwaas haddaan dib u fiirino oo aan waxaanba inta laga gaaray waqtiga isticmaalku naga tagay iyo unitary system ha laga dhigay iyo xagga la isugu habeeyo bulshooyinkan ka hor baan waxaan anigu aan mar walba aan dib u fiiriyaa markii federaalka laga hadlayo maxaanu ahaan jirnay horta waxa intaysan gaalo noo imaan oo aysan unitary iyo federal iyo howlahan aysan noo keenin annaga ruuxiyaga waxaan ahayn feudal systems meel sheekh walba meel buu deganaa suldaan walba meel boqor meel buu haystay
waxaan ahayn dad degan oo xeerar leh oo nidaam leh ruuxoodu structure lahaa ilaa haddana leh haddaan dib u fiirino structurekeenaas hore waxaa laga helayaa modern historyga hadda aan ku noolnahay oo dowladaha naloo keenay iyo wuxuu system dowladnimo oo modernta aan raadinayno 60% haddaad fiirisid waxa xalliya arrimaheena ama structurekeena siduu u dhisan yahay waa structurekaas 60% xagga maxkamadaha wax walba ayay weli kaabaan odayaashii iyo systemkii dhaqanka waagaas jiray marka unitary system waqtiga isticmaalka kulli Talyaaniga markii aan xorriyadda qaadanaynay waa system dadka lagu habeeyo systemkaasana loo habeeyay oo macnaha ay qaadatay dowladii isticmaalkana markii hore ay u sii diyaariso 10 sano u maleynaya oo waqtigii fidijaariyada wixii ka dambeeyayna waxa lagu dhaqmaayay nidaam kalena anagu maba in aqoon markaas oo wixii lagaga dayanayay oo iskoolaadkii systemkii dowladnimada governance-gi waxa lagu habeeyay nidaamkaas unitary wax kala ma aha waxa weey amarku hal meel buu ka soo baxaa fulinteeda iyo sida loo fulinayo sida decentralized looga dhigayo iyo sida hal meel loogu koobayo waa arrin kale laakiin waxay sharciyan qoraysaa amarkaas hal meel buu ka soo baxaa hal meel buuna ku dhamaadaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo wasiir hore Cabdi Faarax Saciid Juxa Shamsa waxay sharaxday hanaano kala duwan oo dawli ah oo adduunyada laga isticmaalo inaguna hadda dastuurkeena aynu ku qoranay 2004 inaynu federal iswada ogola aynu ku heshiinay siyaasiyiin aad ka mid tahay asbuucii dhawaa waxaad soo saarteen aragti ka duwan federaalka oo hab maamul oo la yiraahdo confederation sida Shamsa ay sheegaysay nidaamkan confederationku wuxuu awood ziyaada ah siinaya maamul goboleedyada muranka awal taagnaana wuxuu ahaa dadka qaar waxay ku doodayeen maamul goboleedyaduba nidaamkan federaalka laftirkiisu awood ziyaada ah oo aysan lahayn buuba siiyay nidaamkan cusub ee idinku aad soo propose garaysaan ama aad soo bandhigteen confederaalku ma ka dhaqan gali karaa Soomaaliya maxaad ku doorateen ma joogno xilli dawlad Soomaaliyeed ee heshiis lagu yahay ay dhaqan gashay waxaan joognaa xilli aan ka sheekaysanayno sidii aan u samayn lahayn dawlad Soomaaliyeed oo waari karta waxaan joognaa xilli dadka Soomaaliyeed wixii kala gaaray aysan ka heshiin aysan isu niyad samayn aysan shuruuc taabagal ah oo dastuur ah aysan meel dhigan baan ku jiraa nasiib darradu waxa weeye marka 19 sano wixii laga shaqeynayay oo 15 sano ay ka mid federaal laga shaqeynayay waxa timi sheeka in cidi iman karto maalin maalmaha kamid ah oo sheekadiiba sidii hadii hore la ay sheeko cusub bilaabi karto sida hadda ka socota barnaamijkan burburinta nidaamka federaalka ah oo hadii la eego dawladda ugu dambeysay oo Xasan Sheekh oo kale iyadoo ruuxeedu waxay ku timi federaalku samaysankiisu markii doodii Kismaayo ama Jubbaland ay hirgashay oo tareenkaas uu noqday mid dhaqaaqay baa waxa timi in maaragtay maamuladii kale si degdeg ah lagu sameeyo oo maamuladaani markii hore si organic ah oo ay dadku leeyihiin oo hadda Puntland oo kale 8 sano ayay soo socotay oo la yiraahdo 8 sano sugitaanki oo 19 ilaa 98 oo doodan la soo lafaguray Soomaaliland saas oo kale ku samaysantay laakiin waxay ahaayeen isteediyadaani kuwa si degdeg ah lagu sameeyay waana cilada keentay in hadda si fudud haddana in lagu burburiyo sababta anagu marka aan u soo propose gareynay xilligan in qaabkii federaalka ha laga guro dood kala miiska aan soo saaro waxa noo muuqata in nidaamkii federaalka ah ee 15 sano aan dhisaynay awsan ahayn midba lagu dhex badbaadi karo oo wali uu nugul yahay maadaama aan waxaan cuskanaynaa hadda ka sadaa fiirsi qodobka dastuurka 120 ee dastuurka federaalka ah wuxuu sheegayaa dhismaha golaha xukuumadda iyo kan baarlamaanka inay u taalo dastuurka maamul goboleedka waa awood dastuuriya oo dawlad goboleed in dawlad goboleedu ay dhisato iyadoo maamulkeeda hadda fiirsatid marka baaqi ka soo baxay shirkii hadda dib u heshiisiinta oo galmudug qodobkiisa 7 wuxuu sheegayaa in dawladda federaalka ahi ay soo saarayso hanaankii iyo qaabkii iyo shuruudihii lagu dhisi lahaa golaha garsoorka golaha baarlamaanka madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka ma oran karo marka dawladda halka ka dhalata waa dawlad goboleed runtii hadii si sharciyan loo eegayo waayo maaha wax dadkii lahaa iyo sharciga ilaahay ku samaysteen waxay u eg tahay wax wasaarad la samaynayo taas ayaa waxay keenaysaa marka systemkii inuusan ahayn system nugul weey
ama aan loo shircsanayn annaga marka waxaan konfederaalka waxaan meesha u soo dhigaynaa maadaama doodaas ay saas tahay dowladda federaalka oo noocaasa waxaa loo baahan yahay awoodaha maanta hayso kuwa ka yar in loo delegeed garayo wax kalena maaha konfederaalka waxa weeye anuu hadda ma leeyihiin gobol walba hal aqoonsado caalan ha qaato adduunka ha tago laakiin waxaan propose garanaynaa qaabka imaaraadka oo kale imaaraadku wuxuu kaga duwan yahay dowladaha kale lama aqoonsana imaarad la aqoonsan yahay adduunka laga aqoonsan yahay ma jirto oo sovereignty wali boodiga guud oo United Arab Emirates ka ayaa haya laakiin isteediyada ama imaaraadka ayaa waxay ka kooban yihiin in awood shir garayaan marka waxaan soo jeedinaynaa in awoodda dawladda federaalka lagu aamini karaa ama la siin karaa inay noqoto mid kaliya ee isteediyadu ay u delegeed gareeyaan oo ay taasiyaan dooda ayaan miiska dhigaynaa waxaana keenaya dalku maanta laba wax ay u dhaxeeya laba xaaladood buu ku jiraa inuu kala tago oo kala go'o oo sida case-ka Soomaaliland oo tago oo kale oo halka lagu kala yaaco iyo intii burburtay 30 sano ka hor oo sansaankeedii mudug hadda uu muuqdo ay noqotay wax kale oo miiska saaran labadaasna midkoodna dawladda Soomaaliyeed ma keenayo systemkii federaalku aan isleeyahay ku badbaadaysaana saasuu isagiina u nugul yahay oo qolaa intay maalin soo toosto waxaad moodaa inay cashadii dhinac kale u rogayaan marka waxaan leenahay hal talaabo kale hal la qaado awoodda istiidada hal la xoojiyo waxa dawladda dhexe la siinayo hal loo delegeed gareeyo oo hal la siiyo taasna awooddan inta kale laga hayo taa ayaan u soo propose gareynaa waxaan qabaa see ku suurtagal tahay baa tiri doodaan argu way adkayd waxay ku suurtagal tahay dalku inuu kala galano option maaha oo kala tago sida Soomaaliland waa inuu sii deyno calanka buluuga inuu sii deyno inaynu dawlad dhexe oo shalay ina ka duuntay mid u eg dhisana suurtagal maaha anoo marka waxaan ku doodayaa sida kaliya ee dalkaanba lagu hayn karaa waxa weeye waa confederationka way waxaan kaloo ka hadlayaa waxyar confederationka marka maadaama waa wax walba lagu daartaay mahmahyada wiil baa wuxuu yidhi abos halay guuriyo baa laygu yidhi markaas wuxuu ku yidhi aba haddaan roobka dayrtu di'in hooyada baa furaya marka arrintu hadda waxay og tahay confederation waa fikir jira in laga hadlo geedka ah waa xalaal laakiin xataa ma aha in laga noqonayo federationkii jiritaanka dowladnimada baa laga noqonaya waxaan marka halka dadka halka jooga u sheegaya la qabaa sidee la yeelayaa mowqifka saxa ah waxaa qaatay Sheekh Shariif dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan u soo jeedinayaa Kenya mowqifka in la qaato mowqifkaas muxuu yahay stop halka ma dhaafi kartid hal la soo yimaado waa mowqif xaala stop halka ma dhaafi karto ma aha macnaheedu you are not president bati ma aha macnaheedu halka la iska joogo halkaas waa meeshii laga dhacayay weey waa haadaantii qarkeedii weey haadaanta hadii la dhaafana farmaajo iyo kuwa wada ruuxooda ka dhici doona waxay badbaado u tahay marka farmaajo iyo tiimkiisa halka ma dhaafi karto hal isu yimaado murankan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa mid soo jireen ah in badan soo noqnoqonayay dhowr iyo 10 sano u dambeysay ama 10 sano u dambeysay aan iraahdo mar walba oo ay xaaladdu cakiranto oo caynkan oo kale ay noqotana cidda kaliya dhexdhexaadin jiray ama soo dhexgali jiray waa qolyahan la yiraahdo beesha caalamka waxaan ogeyn Kampala Accord iyo dib u heshiisiino dhowr ah oo dalka banaankiisa lagu qabtay oo lagu dhexdhexaadinayo maamul goboleedyo iyo dawladda dhexe dad badan hadda waxay ku doodayaan in doorkii beesha caalamka ee xilliga kan oo Galmudug iyo Jubbaland maamuladoodu ay dib u dhismayaan muran badan oo ka taagan yahay inuusan muuqanin maxaa lagu fasiran karayaa doorka beesha caalamka ee ka maqan ee la isleeyahay dawladda federaalka ahayd iyo maamul goboleedyada bay isku daawanayaan doorka beesha caalamku hadda wuxuu waa part of the problem not part of the solution markaan si kooban u nidhaahno sababtu waxaa weeye awal hore haddaay waxaan ku yidhi doorkoodu mar walba waxay ahayd doorka hore u riixaya wixii dastuurka lagu dhaqmo doorashooyinka ha la qabto gacan maroojis baa ku jira markay madaxdu loo bogi waayo waa mararka qaarkood waa la khasbay hadda waxaad moodaa dawladda federaalku inay waxoogay ka yara xariifsan tahay dawladihii ka horreeyay hadda nimankan jiro madax bannaanidii bay weaponize gareeyeen waa kii safiirkii European Unionka la eriyey
waa kii wakiilkii xogayaha guud ee qaramada midoobay la eriyey. waxaad moodaa horta markaa inay nimankan beesha caalamku xoogay cabsi ku jirto. beesha caalamku inuu markaa xoogay cabsi ah oo la soo saaro individuals ay jiraan. laakiin waxaa kaloo meesha ka maqan ururka IGAD oo asaguna door weyn lahaa oo caalamka iskugu yeedhayena wuu weeqmay. heshiiskii Baxardaar oo Itoobiya iyo Soomaaliya Eritrea ay yiraahdeen confederation ma sameynayna wuxuu geliyay ururka khalkhal buu geliyay. mala asagana doorkiisa uu jilicsan yahay hadda. dawladda Mareykanka oo hogaaminaysa beesha caalamka oo mar walba waxay tiraahdaa lagu wada shaqeynayay ilaa intuu madaxweyne Trump qabsaday Africa oo de waa shid hole oo waxba macno weyn uguma fadhido sidoo yiri Soomaaliya inay iska badaa muddo 2 sano safiir ma lahayn iyo charter safaaradda Soomaaliya. nimankan hadda dawladana maaragtay xeelada Mareykanku lagu shaqaystay oo lobby group iyo effort badan bay sameeyeen. waxaad moodaa hadda inuu xiriirka ka dhaxeeya engagement levelka inuu aad u hooseeyo dawlad goboleedyada iyo meel kale oo ayaguna ay tahay ayagoo fara badan waxa uu waramaya xalanana la degan yahay. marka hadda ayaga waxa way hal dhinac bay jiraan dhaxdhaxaad maaha. dhinacan goboladii degmooyinka waa ka darantay. maalin dhaxdaasan meel shir waxaan ka yidhi dad aad u fara badan baa waxaa lacag lagu siiyaa khubaro ah inay la shaqeeyaan dawladaha si loo dhiso awoodda maamulada. boqolaal baa ku qoran xamar dawlad goboleedyadana ma jiraan. hadda maalinka dhaweyd waxyaabahan ka doodayna waxaa ka mid ah haddii deynta la cafiyo resourceka la imaan doona sidee loo qaybinaya yaa qaybinaya ma gaadhaya si cadaalad ku jirto goboladii ma u gaadhaya. marka doorka caalamka horta asaga hadda waxaan shalay ka hadlaynay week dhanaan ka hadlaynay in la joogo waqtiga la kuweyshan garayn lahaa meeshay doorka ciyaarayaan inuusan ahayn door wax soo kordhinaya inuu yahay door problemka ka mid noqonaya because hal dhinac hadday istaagaan dee dhinacaas wuxuu isbidayaa inuu sii turanturoodo yay ku dhiirigelinaysaa dhinacyada kale inay soo fogaadaan oo ayaga ka imaan baxaan. marka waxay la tahay aniga ma aha isbedeladaas guud ee ka dhacay Mareykanka iyo IGAD iyo dawladihii hagaya ka sokow in ay nimankani ay ka dadaal badan yihiin dawlad goboleedyada iyo in si isku duubni loo challenge gareeyo oo la tusiyo inay dhinac inay jiraan inay dhibaato dalka ku tahay. dhibta jirtaa waxa weeye doodan Soomaalidu markasta ay socotay dooduhu way iscelin jireen way ismiisaami jireen. waxa jiray baarlamaankii waxa jiray garsoorkii waxa jiray maamul goboleedkii. hadda wixii xalana ku tilmaamay isku milanka awoodaha ayaa ka dhacay dawladda dhexe oo baarlamaankii hadda kuma sheegi karo baarlamaan shaqadii loogu talagalay dastuuriga ahaa haysta oo isaga meesha laga saaray sida gudoomiyihiisii oo kale. garsoorkiina waa la mid. taa waxaa markaa kabayay mar walbaba waxay ahayd maamul goboleedyada oo mar walbaba iyagu dooda dhinaca kale haystay oo wax balance gareynayay. ayagana hadda waxaan sheegnaa 3 waa laga takhalusay mid nafteeda bay ku dagaalamaysaa Puntland faracdi loo ku fikatay. waxa saddexaad ee dooda balance gareyn jiray mar walba waxay ahayd international community-ga oo markii Cabdullaahi laga horiyay cadaadis gareynayo ku khasbayeen oo iscasilo oo markii Sheekh Shariif iyo dawladda si farmaasho cadaadis ku yiri farmaasho waa waqtigaaga aad bixi lahayd oo saarayay oo markii Xasan Sheekh qodobadiisii la oran jiray 6 pillars ay shaqeyn weeyeen ku khasbay in la isu yimaado leadership forum ku sameysmo oo wixii laga soo gudbayaha iyaguna waxay haysteen leverage-ka ama waxa ay haysteen wax ku cadaadinayeen waxay ahayd deeqaha ay bixiyaan iyo awoodooda. marka miisaankii saddexaad buu ahaa. marka waxa muuqda hadda 2 miisaan meesha inay ka baxeen international community-geena waxaad moodaa inay la safan yihiin ama raali ka yihiin ama dhinaca kale ay eegayaan oo dawladda federaalka eegayeen. waayo waxa hadda aan ka hadlayno oo dhan oo caawa halka aan tirinayno eri laga ma hayo. anu marka waxaan ku baaqay caawa on the record in international community iyadoo ay iscadayso
oo xafiiska UN-ka ee James Wan oo dadka Soomaalida hor yimaado oo roolka iyo kaalinta ay leedahay UN-ka uu sharaxo oo sidoo kale EU-du ay yeesho waayo su'aashaasi si toos ah ayay u soo kordhaysaa kaalinta international community-ga waayo hadda waxa la isticmaalayaa waxa weeye aidki internationalku ay bixinayeen oo dawladda dhexe siinayeen dawladda waxay u isticmaalaysaa awood siyaasadeed yaad siisaa yaad ka xanibtaa ayagii waa daawanayaan marka kaalinta international community-gu waa xilligii la su'aali lahaa iyaguna ay isqeexi lahaayeen waxaan doonayaa inaanu gogoosano dooda oo cid walba oo wax ka ogeyd aan wax ka weydiino waxaan doonayaa mikrofoonka haddii suurtagal tahay in loo geeyo maxamed cabdiwahaab oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxna ka ogaa bilowgii samaynta guddigan sharciga doorashooyinka sharciga doorashooyinka dabcan waxaa xilligiisa la daraaftagereeyey waxaa daraaftagereeyey wasiir juxa markuu federaalka joogay iyo maxamed cabdiwahaab iyo tiim ay ka mid ahaayeen maxamed waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo laba sharci baa jiro baarlamaanka la horgeeyey maamul goboleedyaduna ay codsadeen in dib loo soo celiyo waa kan qaybsiga khayraadka iyo kan doorashooyinka labadaba sharciga doorashooyinka xilligiini idinkaa daraaftagereeyey xukuumadduna waxay gudbisay baarlamaanka markii ay isla fahmi waayeen maamul goboleedyada iyo dowladuna baarlamaanku guddigan buu saaray haddaan ka hadlaynayo puntland hadda asbuucii dhawita joogay bilowgii sharciga kan idinku faham noocee aad ka haysateen seesa rabeen aad rabteen in loo hirgeliyo baa muhiim u ahayd oo aad moodid xoogaa labadiiba inaan sidii loogu talagalay aan la marsiin mid waxay tahay in aan sharcigii la marin ka talagelin oo dadka Soomaaliyeed xaq u lahaa lagala tashado iyo hay'adihii kala duwanaa dawladda ama heer federaal ha noqoto ama heer maamul goboleed inaan horta taa la sameyn waa muuqataa midda labaadna waxay tahay sharcigan waxa ku jiray ilaa dhowr qodob oo xasaasi ah oo farsamo ahaan aan go'aan laga gaari karin ee u baahan siyaasad ahaan go'aan laga gaaro waxa ka mid ahaa nooca doorashada waddanku qaadanayo khubradii iyo tiimka gacanta ku hayay way soo jeediyeen in aan go'aan farsamo lagu go'aami karin nooca doorashada waddanku qaadanayo iyo hanaanka deegaan doorasho ee waddanka meelaha laga qabanayo iyo sida loo wadaagayo kuraasta baarlamaanka oo 275 sida loo wadaagayo oo dadka Soomaaliyeed ama deegaanada Soomaaliyeed u wadaagayaan haddii qabiil lagu saleynayo haddii degmooyin lagu saleynayo haddii gobollo lagu saleynayo iyo haddii lagu saleynayo tirada dadka Soomaaliyeed maadaama tiro sax aan lahayn hadda tirada la hayaa ay tahay mid qiyaas ah saddexda waxyaalood oo mid ay tahay habka deegaan doorasho iyo nooca doorasho ama electoral model waddanku qaadanayo iyo sida loo wadaagayo kuraasta baarlamaanka oo 275 loo qaybsanayo saddexda waxyaaloodba waxay u baahanayeen in go'aan siyaasadeed lagu gaaro oo siyaasiyiinta ama madasha qaranka oo kuwa federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada hay'adahooda kala duwan inta isu yimaadaan go'aan siyaasi la isla qaato si sharcigu u hirgalo marka waxaan moodaa iyadoon intii midna aan la soo marin waxa kaliya laga heshiiyey waxay ahayd shirkii Baydhabo in la isla qaatay nooca doorasho oo lagu qaatay proportional representation model ama nooca loo yaqaan PR-ka ayaa shirkii Baydhabo u dambeeyay la isla qaatay intii kale ayadoon la isla qaadan oo la isla meel dhigin ayuu sharcigii wuxuu u gudbay golaha xukuumadda federaalka kadibna baarlamaanka ayaa la horgeeyey haddii baarlamaankii la horgeeyeyna haddee baarlamaanka waa ayaga magacaabay guddi arrintaas ka shaqeeya oo u xil saaran oo shaqada sharciga dib u soo fiiriya oo aan ahayn guddigii shuruucda baarlamaanka federaalka u lahaa marka hadda waxyaalahan kala cadeen waxaa ka mid ah guddigii aan ahayn guddigii shuruucda ee baarlamaanku lahaa guddi aan ahayn baa sharciga loo magacaabay waxyaalaha caddeynta u baahan in la bayaamayo waxaa ka mid ah guddiga kanu ma sharcigii hore oo xukuumaddu soo diyaarisay ayay ku dul shaqaynayaan oo wixii ay isleeyihiin waa u baahan yihiin in laga bedelo ama lagu daro miyay ka shaqaynayaan oo macnaheedu waxa weeye sharcigii bay akhriskiisii ku maqan yihiin ka tala bixintiisa mase sharci cusub ay diyaarinayaan oo kii hore
dhinac socda oo xukuumaddu soo gudbisay su-aalahaas oo su-aalaha u baahan in la caddeeyo markay guddiga timaado iyo doorka baarlamaanka laakiin sharciga anagu halka kan waa noo yimaadeen guddiga baarlamaanka federaalka ah 15 xubnood sharcigan waxyaalaha marka waxyaalo badan waxa ku jira khatartiisa leh oo u baahan in dib loo fiiriyo lagana tashado dadka Soomaaliyeedna ay talada sharciga ay wax ku yeeshaan waxaan rabaa Faisal Warsame gudoomiyaha Punsa inaad igu dhiibto Faisal dhawaan asbuucan waxaad la kulanteen guddiga hadda aynu ka hadlaynay ee Shamsa ay falanqeynaysay sharciyadooda Maxamed Cabdiwahaabna uu uga dambeeyay guddigaasi waa guddiga ku meel gaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka dabcan Punsa way la kurantay iyo hay'adaha civil society-gu maxaad kala hadasheen contribution-kiina ama ku daridiina maxay ahayd بسم الله الرحمن الرحيم آدي بماتسيهين بانل كا يو ددوينها جود هان رنتي وحيا هيدون لوا أحرمود نمبر 1 هرتو جودي جالس وجود برلمان كفدرال كحلبانا وشان يتون حلبانا حلبانا داس وحيكوي معدن مركي شرعي كان دور شوين كأم آد لو دليل اللي يسكون هي وهرتج اللي هرجي برلمان كحكومة وجود بس sharcigaas processkiisa hore maxaa u daawa sharaxay wuxuu ahaa sharci markii hore guddi wasaaradda arrimaha guduhu ay soo diyaariyeen golaha xukuumadda la gobol basgaray baarlamaanka la geeyay baarlamaanku gudoomiye mursal oo halkan noogu yimid waan kala hadalnay marka wuxuu yiri waxa iman doona guddi baarlamaanka magacawnay oo la tashan doona xukuumadda baarlamaanka iyo civil society halkan markii aan la kulanay anagu intiisa noo iman ka hor guddi aan u saarnay waraa ومحمد عبد الوهاب قامني قد جالس واحد دياريين وحيابها خلدات كأما شرعية برونية دستور كلفتيس أو واحد كجرة وحيابها بدن أو دستور كبرونية أو ماشي كموضة حيابها صعدان أيام أورورني وحن لو ذاكنا قد جا إيوه الرماها كلام مهم كم تهاي إن أنا شجنا أنا غلفت يضد عنك إن الله هين كلجيو ay tahay Puntland inay soo saar doonto position paper siyaasadeed ayadoo meesha ka taaganta arintaas ah oo baarlamaanka iyo dawladda iyo bulshada dhan ay isla wadaagaan oo dawladda xukuum hal magac ku soo baxaysa insha Allah arinta ugu miisan waxay tahay guddigaas go'aan ma leh waa aara ururin wuxuu afkaarta un bay ururiyeen kadibna waxay loo noqonayaan baarlamaanka halkaas aan doodda la geenaya laakiin sideedaba doodda doorashadu waxay tahay waa arin siyaasadeed haddaysan ka heshin maamulada jira iyo dawladda dhexe iyo baarlamaanka iyo dadka stakeholderska ah oo siyaasiyiinta arintaas qofna kaliya ma qaadan karo ama laba qof ama saddex qof go'aan kama gaari karto waata aad u maasanta Faisal waxaan rabaa halkan inaan ku soo celiyo Xuseen xalana waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dabcan guddiga doorashooyinka guddigan ku meel gaarka doorashooyinka aad baa looga hadlay guddi hore oo doorasho oo madax banaan oo commissioner waa jira maamul goboleedyadii iyo dawladdii federaalku waa sii kala fogaanayaan wadankana waxaa la qiyaasayaa sida lagu wado 2020-2021 inay doorasho ay ka dhacdo sida ballanku ahaa ma is leedahay iyada oo kala duwanaanshaha kani iyo kala fogaanshahani uu jiro wadanka doorasho ka dhici karta hadday ka dhacdo sida doorasho caynka ay noqonaysaa waa hadaa waxaan idhi doorashadii lagu ballamay kama dhici karta dalka waqtigu waa cidhiidhi hal sano iyo dhowr bilood heshiis ma jiro lama soo saarin habkii sharcigii laguma heshiis maaha wada shaqayn ma jirto galmudug xitaa ma dhisno hadda dowlad ahaan waxaa laakiin dhici karta inay dowladda federaalku ama sharcigaa mariso oo anigu waxaan u arkayaa maybe inaan xag jir yaro noqday la tashiga naftigiisa inuu yahay tick box oo gobolladii waan soo maray oo waan haysanaa fikirkooda oo sharciga waa la marinaya inay ama kororsato dowladda federaalku ayadii golayaasheeda waqtiga ama waxay iyagu keligood wataan uu meel maro laakiin markaad si walba u dhigtid inaan isfaham siyaasadeed jirin in waqtigu yar yahay inaan doorasho dhici karin dalkii ahayd hal qof iyo hal cod horta
su-aasha kaloo la isweydiinaya habkiina laga guuray 4.5kii maxaa suuragal ma jirto doorashadii lagu ballamay dhici mayso marka laakiin maxaa kaloo suuragal ah inay dowladda federaalku tallaabo iska qaado kororsi iyo doorasho mid ay noqotaba taasna ay keeni karto in dowlad goboleedyadiina ay markaas sii fogaadaan meelaha dowlad goboleedyadu la sanduleeyeen inay shacabkoodu marka ayaga naftigoodu fur ka tuuraan khatarteedu way badan tahay laakiin doorashadii lagu ballamay sinaba ma dhici karta aniga xisaabtankayga waxaan intaa ku dari lahaa horta mandate-ka dowladdu waa dhammaanaya marka sanadii xoogaa la gaaro waana in cidi bedeshaa waxaa muuqata doorashaha qof iyo codi ma dhacayso arrin siyaasadeed oo heshiis lagu yahana ma jirto amni ahaana uma dhacayso haddii ku darsina waxaan filayaa isaguna la yaabkiisu yeelanaya iyo si uu suurtagelaya ma garanayo laakiin waxaan rabaa inaan erey ka dhaho sharciga doorashada laga hadlayo runtii sharciga ruuxiisa laga hadlayo maxamed cabdiwahaabna si uu qeexan buu qeexay haddana guddiyadu meelaha marmarayeen horta waxa la propose gareeyay baydhamaana lagaga heshiiyey qaarkeed qaarna dowladdu ku darsatay in doorasho dhacdo hal qof iyo hal cod waa iska principle waa lagu heshiiyey proportional inay noqoto waa la isaga heshiiyey laakiin cilada meesha taala oo waxa marna doorasho loogu yeeray marna wax kala ah waxa weeye waxaan sharcigu horta wuxuu sharciyeynayaa waxa la yiraahdo 4.5ka lagama guurin allocation of seats lama samayn 275 kursi ee baarlamaanka ee dastuurka ku qorani waxay ku fadhiyaan reero afar reer iyo bara sida wax lagu qaybsaday qorshaha cusubi kama guurin oo sharciga doorashadu bal wuxuu xaqiijiyay wax xisbiyada loogu yeeraa in xisbi waliba uu hubiyo sidii wax loo kala lahaa inay wax soo baxaan waxa soo baxaya marka waxa weey wax doorasho loogu yeeray 4.5 oo ku sharciyeysan kaliya meesha waxa ku sii daran oo ku soo kordhay waxa weey waxa la yiraahdo deegaan doorashada hal deegaan doorasho ama single constituency waxa la yiraahdo oo dawladda federaalka hay'adu kaligeed ay ku darsato aan heshiiskii baydhabo ku jirin oo khatartiisa leh oo si toos ah uga hor imanaya conceptigan ah federalismka hadda aanu propose gareeyno wax ka sii gedisanba waayo marka aad tiraahdo waxaan samaynayaa single constituency oo dalka oo dhamay hal deegaan baa laga dooranaya waxa soo baxaya xildhibaan aan degmo matelin oo aan gobol matelin oo maamul goboleed matelin oo kula Soomaaliba ay doortay oo cirka jooga oo waxaad ka sameeyay aysan jirin oo dawladda meesha joogtaan iyadu waxay xisbi ku sheegtay ay ku soo darsanayso arrintan axsaabtu iyadu ruuxeedu way iska fikir socda laakiin arrin fadhida ma aha Soomaaliduna inay walaayada u dhiibato wax xisbi la yiraahdo hadeer diyaar ma aha Soomaalidu qof waa taqaanaado hadii halkaas soo istaago hebel waa kala dooran kartaa maamul goboleedka iyo waxa isaga qaybsataa laakiin xisbi hebel in walaayada loo dhibto oo kalsooni lagu sameysmaa waan xisbigu au kasbada kalsoonida oo isagoo ruuxiisu doorasho loo kala soo maraa oo soo process gooraba oo legitimacy hela laakiin xisbi iska heehaabaya isagoo ruuxiisu aan meel marin marka arrintan xisbiga doorashada ruuxeeda sharciga doorashada ruuxiisa sababtii maamul goboleedu ay dhamaantood u diideen buu qaba marka waxa weey doorasho hal qof iyo afar dhici mayso extension ku suurtagal maaha mandate ku waa dhamaanaya laakiin ay taasi khaladka iyo shaqadiisa tahay cid talada haysa xal waa la helayaa laakiin halka in laga wada hadlo way